waxaa jirta wax anxiety la yiraahdo waa xaalad baqdineed ama walwal qofka ay la soo wajahaysa xaalad walba ku jira ama da walba ha ahaado qofkaasi nolol maalmeedkiisa uu dareemi doonaa anxiety wax la yiraahdo waa baqdin ama walwal dadku way kala duwan yihiin qofka mararka qaar waxa laga yaabaa inuu iska dareemo walwal uusan garaneyn ama baqdin uusan garaneyn meesha ay ka imaanayso dadka qaarna way og yihiin meesha ay ka imaanayso tusaale ahaan dadka waxbarashada ku jira oo kale imtixaan markii ay ku soo wajahan yahay qofka baqdin buu dareemayaa haweeneyda uurka leh markii xilliga dhalmada la gaaro oo kale baqdinta iyo walwalku ay soo wajahaysaa qofka ilmaha dhalinyarada ah ee markaas madaxa soo qaadaya 14 ilaa 18 baqdin way dareemaan haddii waalidku ay yihiin waalid cadaadis badan ama adag oo hooyada babis haysato ama aabaha suun haysto ilmahaasi waxay dareemayaan cadaadis aad u tiro badan waxaana ku dhalanaysa baqdintaani iyo walwalka ah baqdintaani walwalkaani haddii ay kor u kacaan ay weynaadaan waxay isku bedelaysaa panic attack qofku wuxuu dareemayaa wuxuu ka baqayaa inuu dhinto ama wuxuu ka baqayaa inuu waasho ama waxa dhacaysa in neefta ay ku ceshonto markaas oo kale Soomaalidu waxay tiraahdaa qofku marka saas oo kale isku bedelo waxay dhahaan qofkan waa sixran yahay ama ilba hayso isla markiina waxa loogu ordaa sifa la geeyaa qofkan waxa laga yaabaa wuxuu u baahan yahay kaliya in maskaxiyan loo soo dhaweeyo cabsida laga saaro sidaan ognahay horta quraanku waa dawo laakiin qaabkee la isku saaraa way su'aasha shifadu kama soo horjeedo laakiin qaabkee qofka loogu saaraya shifada si ognaana qof walba joogo qof walba baa joogo qof sixran baa joogo qof heesaa joogo qof dilaa baa joogo in kaar qaba joogo qof waalid caasi ah joogo dadkaas oo dhan markay yimaadaan oo meesha dhan wada qaylo tahay qofkaani maskaxiyan kaliya xoogaa arin ay soo gaarta cabsi waxaas hadii la geeyo gacmaha laga xirxiray indhaha basbaas loo maray asiga dhan cabsida lagu sii weyneeyo waxa dhacaysa qofku inuu ka sii daro wana badanaa markay dhacayso waalidku inay dhahaan wax walba aan kala qoosto quraan baan kala qoostay dhakhtar baan kala qoostay meel walba aan geeyay halkaas uu ku xirxiray waa qof maskaxiyan u disheen marka hore waa inaa ogaataan qofkaani dhibaatadiisa hore badanaa marka u fiirso Soomaalida badanaa waxay dhahaan waa ogaa qofkan inuu waalanayo waa ogaa qofkan inuu dilaan noqonayo waa ogaa qofkan inuu wax xadayo waa ogaa qofkan inuu wax sameeynayo laakiin ma arkayso qof dhahaya waan ogaa inuu qofkan waxan sameeynayo laakiin intaysa dhicin baan ka hortago qofkan wareysto garbaasiyo ma arkaysid qof walbaba badanaa marka haddii maanta qof dhalinyaro ah tahay waqtigaaga ugu badan waxa aad gelisaa maskaxdaada saa u balaarin lahayd oo qofka dadka kuugu dhow ee aad dareemaysid inay wax ka bedelmi rabaan inaad garab siisid xitaa haddii wax ka bedelmeen inaad gobolka ka bedeshaan magaalada ka bedeshaan meel kala geysaan meesha kalena aad geynaysaan waa inaad u geysaan qof bilaadantinimada naxariistu ku badan tahay oo qofkaani madax u salaaxaya hab siinaya cabsida ka yareynaya laakiin qofku haddii wax yariisa aad dareentaan ba aad meel halisa aad gelinaysaan waxa dhacaysa qofku marka dambe inay ka sii saaciido quraankana ayad quraana waxay leedahay wartil quraana tartiila quraanka si cod dheer oo tartiibaha loo aqriyo shifada si cod dheer loo aqriyo oo bobsiis ah oo qofka dhagaha looga shubayo qofku waxa laga yaabaa in argagax uu sii qaado shifaduna waa meel ganacsi ah oo registration mar hadii laga qaadayo oo lagu leeyahay lacagta bixi intaas ayaa joogaysa waa lagu la gortamaya quraankuna gorgortan ma galo qofku waxa fiican quraan bil saaray si lillaah loo saaro in ilaahay uu ka caafiyo qofka kalena ku caafimaaday ama ehelkiisa ah inay wax u gartaan dadkaasi laakiin hadii lagu la xisaabtamayo taamicneedu waxay tahay inay ganacsi tahay gabagabo anxiety way jirtaa qof walba naga mid ahana wuu la darsaya haddii aad maanta dhalinyaro tahay waxaan ku dhihi lahaa maskaxdaada balaari dadka markaa kuugu dhow ama ha ka yaraadaan ama ha ka weynaadaan xaaladaha markaa la soo darsaysa ka warhaay qofkii garab u baahan garab sii waxaa laga yaabaa xataa qof in rikaato lagu haysto rikaatadana waxay sababtaa qofku inuu cabsi la noolaado cabsida haddii ay ku weynaatana waxaa dhacaysa qofku inuu panic attack qaado panic attack markuu qaadana waxaa dhacaysa qofku inuu waasho ama wali uu ka baqo waana tan sababta mararka qaar dadka qaar inay la darsaan waxaad arkaysaa qof dhalinyaro ah ilmo ah film uusan gaarin inuu daawaday kadib guriga markuu ku soo laabto asoo mahsan buu imaanaya maskaxdiisa waxa aysan awoodin buu soo daawaday kadib markay arkaan qofkii uu mahsan isla markii waxa leeyahay waa la ilaysta ama waa la shixray qofkaani waa in horta dib loo baaraa meeshii ugu dambeysay uu joogay wixii ugu dambeeyay oo ku dhacay cidii ugu dambeysay oo la socday xitaa haddii jiraan dhalinyaro markaan soo kacayso oo ka yar oo food jaranaysa ama wax uu sameynayso waalidkuna xoogaa ay isfahmi laayihiin haddaad qof dhalinyaro tahay inaad inta dhex gashido aad la sheekaysatid oo aad macnaha dee adiga aad hormuud u noqotid ku dadaal dhaqmadana dib marka u fiirisid waxaad arkaysaa waxyaabo badan oo aad ka naxaysid tusaale ahaan waxaa lagu leeyahay qofku markuu xasuusado dabbaa dawo u ah qof aad arkaysa wejiga ka guban caloosha ka guban jirkiisa dhan looga ciyaaray waxaad arkaysaa qof maskaxda xoogaa xiriisa ka soo gaareen oo la iska xirxiray oo looga sii daray indhaha bisbaas laga marinayo dhaqamadaasi xunxun qofka bedel lahaa waa adiga waqtigaaga ugu badan waxa aad gelisaa sida dhaqankaas u bedel lahayd waxa aad ku bedelaysaa waxa ay tahay ama aad ka bedeli kartaa waxa ay tahay guriga aad ku nooshahay dadka aad la nooshahay dadka kugu dhow ee dunida ugu jeceshahay ehelkaaga ka mid ah ehelkaaga markaa bedeshid waxa dhacaysa qof walba ehelkiisa inuu bedelo waxaana soo baxaysa bulsho caafimaad leh فيديوغان هذا كيش أصحابته هذا لا وداك وحي فكر كاغا كومنتي كنقول وداك من البلد dunida ka nooshahay Allah kugu xifdiyo. Assalamu alaykum.